وحجرا صدق حبارو بدوا أبيه بدنوا هويدي عرسه بدنوا قبلي سي مريم وحجرا تمالك أول هذا لما هو لقوم برساي هاي وحري حرية ولقي فرسي لو دماغ أيها الله حلال لكن تاول حرج شوي ولا قدروا فرس كل انتظار حلو مليون نجحة يوالله وعصي ولي دود ذا تاح هذا اللي ما كان سيد محمد markii uu soo laabtay waxa uu isagu u watay dariiqada saalixiya waxa uu bilaabay ololo uu Ingiriiska kaga saaray dalka isaga oo huwan dariiqadiisa saalixiyada sanadku markuu ahaa 1899 bishii Abriil waxa rasmi ahaan loo sheegay inuu urursaday ciidamo gaaraya ilaa 3000 oo nin koodii September sanadku markuu ahaa 1899 waraaq uu soo diray rasuulkii Ingiriiska xeebaha Soomaalida ugu qaabilsana waxa sayidka Ingiriiska uu ku eedeeyay inay cadaadinayaan islaamka waxana uu cambaariyay kuwa gacanta siinayay warqadaasi waxa uu ku yidhi sayidku imika idinku kala doorta haddii aad dagaal doonaysaan waa oqol maalintaasi ayaa nin fallaaga loo qoray dagaalku Ingiriiska Talyaaniga iyo Itoobiya ayaa markaasi bilaabmay haddaba bal aan idinku wareejiyo aw jaamac Cumar Ciise oo inoo sheega sida sayidku uga baxay Berbera ilaa iyo intii ay dagaalada isaga hor yimaadeen Ingiriiska anigoo soo koobaya sayidku dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay wuxuu ka bilaabay Berbera sida la leeyahay maalin maalmaha kamid ah ayaa nin baadari isagoo inama dhowra 5 iyo 6 dabada ka wada suuqa marinaya ayuu arkay markaas yiri war waxa kan waa maxay waa diinteeniyo la soo galay labada dhagax buu qaatay baa la yiri wuxuu ku dhiftay gaalkii meesha joogay oo baadariga ahaa wuxuuna yiri ilaahu maantay intaasan awooda culamadii reer Berbera hadalla la isku jiray oo dhowr erayo uu sheegay oo yiri baridu waa xaraan qaadku waa xaraan iyo waxyaabo kamida ayay xoogaa yarahe arrintii la isku maandhaafay markii dambena xalkiisa magaaladu waa ku fiday oo magaalada Berbera wuxuu ku noqday nin caan ah oo wax soo wada nin la oran jiray Allahu naxariistay awgaas ayaa xalkiisa markuu eegay wuxuu yiri wali ninkan hadaan maanta la qaban meel fog baa laga dooni waa la dacweeyay adigu markuu dareemay in magaalada xoogaa yaraha laga jeclayn ama wuxuu ku soo roodi karin waa ka baxay wuxuu sii maray dhaymoole iyo majacase oo ay ka furayd maaragtay muxuu ahaayay laba isgool oo baadariya oo ciyaal agoona iyo lagu ururiyay wax lagu baraayay inan buu u yeeray wuxuu yiri adeer magaca wuxuu yiri John baa la yiraahdaa waagii hore maxaa lagu oran jiray Ali sidaas ayuu u sii dhaafay baa la yiri wuxuu yiri maanta matanay joogtaa sheekh uu sii maray Suldaan Nuur Axmed Amaan ayuu wuxuu ugu tagay ood weyne wuxuu sii socdaa hay'ad hadalka ayaan soo koobi odeedna qoliyahaas habar yoonista xoolo badanna waa siiyeen aad iyo aad bay u kaalmayeen waana la isabkartay wuu ka tegay xoolihii isagoo wata wuxuu tegay meel la yiraahdo qoryo weyn oo magaalada Burco koonfur bari kaga toosan halka ayuu ka aasaasay horay buu uga gudbay wuxuu sii gudbay xagga bariga Buuhoodle iyo halkaas uu tegay adigu meesha markuu joogo xogaa ilaahay baadacay dhowrna oo maanta oo galaal cali uu ka mid yahay ayaa meesha ku dhintay horay buu uga tegay markii halkaa oo dad badan baa raacay adduun badan baa raacay rag iyo maaragtay xoolo isagoo wata wuxuu ka
وعانو وقنا وناك بدن وفكوانا ذاديو وحقوقات هذا الكي دد وحاء وعانو وقنا وناك بدن وفكوانا ذاديو وحقوقات هذا الكي أنا كور رمايه ويدي ذا مقالو ودنها قيون نحن نحاريس توليقا كالوريقو أنا كور رمايه ويدي ذا مقالو ودنها قيون نحن نحاريس توليقا كالوريقو وعانو وقنا وناك بدن وفكوانا ذاديو وحقوقات هذا الكي دد وحاء وعانو وقنا وناك بدن وفكوانا ذاديو وحقوقات هذا الكي كور رمايه ويدي ذا مقالو ودنها قيون نحن نحاريس توليقا كالوريقو أنا كور رمايه ويدي ذا مقالو ودنها قيون نحن نحاريس توليقا كالوريقو وعانو وقنا وناك بدن وفكوانا ذاديو وحقوقات هذا الكي دد وحاء وعانو وقنا وناك بدن وفكوانا ذاديو وحقوقات هذا الكي كور رمايه ويدي ذا مقالو ودنها قيون نحن نحاريس توليقا كالوريقو أنا كور رمايه ويدي ذا مقالو ودنها قيون نحن نحاريس توليقا كالوريقو